kuwani waa dhulalka ugu waaweyn ee aan cidina si rasmi ah u lahayn dunida. Dhulka ku jira kaalinta koowaad waa mid aad u ballaaran, xataa waxa uu noqon karaa dal dhan kaligiis. Kaalinta shanaad waa dhul yar oo u dhexeeya Croatia iyo Serbia, kaas oo aan cidina sheegin sababo la xidhiidha khilaaf xuduudeed. Waxa uu gaadhayaa qiyaastii 7 kiiloomitir oo laba jibaaran. Kaalinta afraad waa dhul lagu muransan yahay oo u dhexeeya Hindiya iyo Pakistan, iyadoo labada dalba ay halkaas ku leeyihiin ciidan military. Waxa uu gaadhayaa ku dhawaad 700 kiiloomitir oo laba jibaaran. Kaalinta shanaad waa gobol saxara ah oo u dhexeeya Masar iyo Suudaan, kaas oo aan cidina sheegin sababo la xidhiidha muran xuduudeed. Baaxaddiisu waxay ku dhowdahay 2,000 kiiloomitir oo laba jibaaran. Kaalinta labaad waa dhul ay labada dal ee Masar iyo Suudaan ay sheegtaan, taasoo keentay inuu noqdo meel lagu muransan yahay, waxaana gaadhayaa qiyaastii 21,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Ugu dambeyntii, kaalinta koowaad waxaa gelaya dhulka ugu weyn ee aan cidina si rasmi ah aani u lahayn, sababtuna waa in heshiisyo caalami ah iyo goobtiisa fog awgeed aan cidina yeelan karin. waxa uu gaadhayaa qiyaastii 1.6 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Waa dhul aad u ballaaran oo ku yaala Antarctica, laguna magacaabo Marie Birdland. Ma rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaale aad ka samaysid online-ka? Haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing, affiliate marketing, cryptocurrency iyo digital products sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kuugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. Kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. Igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.